magaalada Baran ee gobolka Sanaagna waxaa lagu soo waramayaa in dugsiga sare ee Maxamuud Cali Shire 8 gabdhood wax ka baranaya ay ku sumoobeen kadib markii ay faraha la galeen qalabka lagu barto sayniska ee dugsigaasi yaala. warka ayaa intaasi ku sii daraya in ardaydu ay sumowday kadib markii ay laabka sayniska lagu barto galeen oo ay iska isticmaaleen iyagoo fasax ka haysan macallimiinta dugsigaasi wax ka dhigta. Saciid Cabdullaahi Tiish ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baran. magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa wax maanta ku sumoobay ardayda soo dhigata dugsiga sare ee Sultaan Maxamuud Cali Shire kuwaasoo tiradoodu gaarayso 8 gabdhood. Simowgan ayaa waxa keenay sida uu TV-ga Somali Channel u sheegay maamulaha dugsiga sare Imaan Maxamed Cashuur kaasoo noo sheegay in arintani ka timi in ardaydu farafarayeen laabariga sayniska ee dugsigaasi iyagoo aan macaan la socon taasna ay keentay inay ku sumoobaan halkaasna ku daataan. sidoo kale waxaanu booqasho ku tagnay waarka dumarka ee isbitaalka guud ee degmada Baran si aanu xaalkooda caafimaad wax uga ogaano halkaas oo la geeyo laguna daaweynayay waxaana si hagar la'aan ugu shaqeynay Dr. Isa Axmed Taajir iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka oo heegan ugu jiray si loo badbaadin lahaa waxaana wareysi la yeelanay agaasimaha guud ee isbitaalka Axmed Jibril Cali Salaad dugsiga sare magaalada Baran ardaydaas oo ku sumowday chemical maartay san ka qaateen hadda waxay soo gaadheen waxa weeye asbaabkii magaalada Baran halkaas oo hadda lagu wado arrinkoodii maartay lagu daweynayo runtii hadda qaybtoodu way ladan tahay laba qof baa hadda yara liita laakiin iyaga insha Allah hadda waxaan rajaynayaa inay ka soo reynayaan oo si hore way soo dhaamaan. sidoo kale waxaa isna waqtigiisa nasiyay isagoo shaqadiisa ku jira Dr. Isa Axmed Taajir wuxuuna yiri bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa dhacday arrin aan hore u dhici jirin oo ardayda dugsiga sare dhigata Maxamuud Cali Shire ayaa waxa ku dhacay in ay meel laboratory laabka lagu baro inay galaan oo ay halkaas laboratory-gii ay ku jireen in dhibaato badan kaga timi oo ay qaatay ay jabiyeen deetana wax gaareen iyaga dadkii halka ku sugnaa oo dumar u badnaa hadda waxaan maaleeyay inay 7 sii dhaafayaan ilaa hadda waxa oxygen baa ku socota khayr baan rajaynaynaa wixii macaawinaan hadda ilaahayba kolba iyo dadkii caawi kale ilaahay dadkan ku sugeynaan waa mahadsantihiin. dhinaca mas'uuliyiinta ayaa waxa isla goobta ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Maxamuud Ismaaciil Ciyan oo u kurgalay xaaladda halkaasna saxaafadda kula hadlay. halkan aan hadda joogno waxa weeye isbitaalkii guud ee magaalada Baran oo runtii shaqo aad iyo aad muhiim ah hore noogu hayay haddana noogu hayay arrintan naxinta leh oo maamulaha isbitaalka iyo maamulaha iskuulka ka sheekeeyeen 6 gabdhood oo sumoobay waa la soo arkaan dadkan oo argagaxsan ayaa hogaanaya maaragtay albaabka iyo ridda meesha lagu daweynayo haddana aad iyo aad u ladan yihiin sida wax u dhaceen iyo sida ay yihiin aad iyo aad u kala duwan tahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu masiibadaas uu noo fududeeyo mas'uuliyiinta madashan ka hadashay ayaa baaq u diray dhammaan hay'adaha caafimaadka ku shaqo leh iyo wasaaradda caafimaadka inay ka qayb qaataan cid kasta oo wax ka qaban karta inay ka soo caawiyaan arrintaas ayna dadaalayaan inta tamartooda ah. arrinta naxdinta leh ayaa ahayd mid aan hore uga dhicin magaalada saameyn weyna ku yeelatay guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka. Saciid Cabdullaahi Tiish, telefishinka caalamiga Somali Channel gudaha isbitaalka guud ee degmada Baran.